قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا إننا قوم خلقنا قيمون إننا قوم خلقنا قيمون مثل سحب الشوق طرنا كالغمام وبإبداع سعينا للأمام ديننا دين الرقي والسلام إننا قوم خلقنا قيمون قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا إننا قوم خلقنا قيمون إننا قوم خلقنا ومالك 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 مسكحدي دونيدو ملاسا موجده هيدا مسكحدي دونيدو ملاسا موجده هيدا waxaa madasha ku soo bandhigay riwaayado iyo suugaan ka turjumaysa waxbarashada iyo doorka ay nolosha kaga jirto qaar ka mid ah ardayda wax ka barta dugsiga buluug kuleyba haday wax bartaan iyo hadii kalaba waxa ku dambeynaya waa guri dhammaantiin waan idiin tegaynaa dumar qaadi baan nahay hadalkii aan oo dhan cidna nagama soo horjeesito dibniina kala fura aqoontu kaa didin damnayo ina kaa odhan aayadaha daliilkiyo iyo diintu kaa lumin dawa mala xumaantiiyo xaqayaan lagaa duwin dhaqasheeyo dhulaynaan afgaranayn keeniina dhaafshee xagee bayna dhigayaan munaasabadani ayaa ujeedkeedu daarnaa abaalmarinta ardaydii ugu sarreysay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedka ee dugsiga hoose dhexe sheekh maxamed warsame munaasabadani oo si maqaam sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka gabiiley maayar ku-xigeenka degmada gabiiley xildhibaan cabdiraxmaan nuura bokor madaxa maamul daadejinta waxbarashada dowladda hoose gudoomiyaha xaafadda laagbarako waalidiinta ay ardaydoodu wax ka barato dugsiga iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan waxaana ugu horreynba munaasabadani ka hadlay islamarkaana faahfaahin ka bixiyey dugsiga maxamed cumar maamulaha dugsiga hoose dhexe sheekh maxamed warsame dugsiga sheekh maxamed warsame waa dugsigii ugu weynaa ama ugu horreeyey gobolkan ama degmadan 1953 baa yaa la dhisay waa hooyadii dugsiyada looga kanaa waxaa laga aasaasay marka kuwa public ah laga tago 3 iskuul oo kale oo dawladeed niyuu gabilay aw tusbaxle kaa ugu dambeeyay wada jiro 300 oo arday shalay geynay waxa siba halka 40 fasal buu ka kooban yahay 20 gelin horena iyo 20 gelin damba fasal walba waxaan ka soo qaadanay 4 arday 160 ka arday iyo waalidiintoodii halka fadhiyo doonayaan jaajada maanta siino 40 wiil iyo 586 gabdhood 56 waxbarashada dadka waaweyna dadka waaweyn waalidiintii ay ka absaantay ama hablii ay ka absaantay waxbarashadu geelka dambe halkan loogu dhigaa si bilaash waxa iyaguna mikrofoonka iska daba qaatay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadani iyagoo dugsiga ku amaanay kaalinta uu kaga jiro waxbarashada gobolka iskuulka aan ugu qabanayno jaayisada carruurta sanad dugsiyeedka oo ugu soo xidhayno dugsigan dhiganaysa iyo waalidiintaba waa in horta ogsoonaadaan iskuulka sheekh maxamed sameeynu yahay iskuulkii dadka reer Gabiley ay wax ku soo barteen ardayda yaryar ee iskuulka maanta abaalmarinta la siinayana waxaan leeyahay waa nasiib badan tihiin waxaad dhigataan dugsigii aqoonta dugsigii sheekh maxamed warsame oo ah dugsiga keliyaata ee xididada uu ku taagan yihiin kuwa aad u adag ardayda waxaan ku dardaaraya inay waxbarashadooda daba taagnaadaan ilaa inta ka midha dhalinayaan beri toolo baad noqon doontaan madaxda dalka madaxda la soo dhaweynaya idinkuma beri toolo noqonaya waqti sidaa u sii fogba ma aha waxa weeyaan idinka ayaa mas'uuliyiinta gobolka iyo dalkaba noqon doona laakiin waxay u baahan tahay taas inaad wax barataan oo waxbarashada ka midha dhalisaan qof waliba dadaalo waxaan mar kale iyaguna hambalyeynaya 160 arday ee abaalmarinta la siinayana waxaan leeyahay guuleysta waxa weeyaan aniguba shalay tolo waxaan ka mid ahaa ardaydii isku kan dhigan jirtay jaayisadaha saasoo kale u qaadan jiray imiga inta fasare wax ku soo dhigtay halkan iga muuqata hadaan idin tuso ee idin tilmaamo aad bay runtii waxa weeyaan idin qiiro gelin kartaa marka waxaan idin leeyahay ardayda dadaala
inta kale maanta jaayisada qaadanayna insha Allah sanadka dhammaan u rajaynaynaa dugsigana ha la ogaado in waalidiinta waxaan leeyahay dugsigan waa in la ogaado inuu yahay dugsi aqoontiisu ay tahay mid la isku halayn karo inta qof ee halkaa fadhida dhammaantood halkan ay wax ka wada barteen macallimiinta iskuulkan wax ka dhiga laga yimaado iskuulkan ba wax ka barteen marka waalidiintana waxaan leeyahay ardaydiina waxaad keenteen dugsi macquula dugsi taariikh leh dugsi ummadu ka iskuulka Sheekh Maxamed Warsame wuxuu ka mid yahay iskuulada ugu faaca weyn Soomaaliland waalidiinta iyo macallimiinta iyo dadka markaa ka qalin jabiyay iyo markaa waxa weeyaan dadweynaha markaa ka baxay waxaan ugu baaqaynaa in iskuulku markaa wali extension amba fidin lagu sii baahan yahay galaas kulliba lagu kordhin doono waxa weeyaan dugsiyada oo aabaha iyo hooyadaba ahaa waxa weeyaan waa dugsiga ay ka farcameen dhammaan dugsiyada gobolka ku yaala taariikhda fog buu leeyahay oo tixgelinteeda lagu siinayo maamulaha dugsiga Maxamed Cumar Warsame aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo macallimiintiisaba waxaanu kaloona ardayda ku wargelinaynaa in ay ardaydu noqoto arday u qalanta dugsiga waxaan aad ugu mahadnaqayaa maamulaha dugsiga Maxamed Cumar Warsame oo ahaa xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka aad iyo aad buu mahadsan yahay qofkuna waa inuu ummadiisa uga faa'iideeyaa cilmiga uu soo bartay mar walbana uu gacan ka siiya waxaan halkan aad ugu hambaliyaynayaa ardayda maanta halkan fadhida ee 160 arday ee la guddoonsiin doono jaayisadihii ay ku guulaysteen imtixaanka waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad baad mahadsantihiin hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yidhi kolka quraanka la akhriyo in la tagaytaana muhiim weeyaan quraanka ilaahay wuxuu ku yidhi kuwa wax garanaya iyo kuwa wax garanaynin ma isku mid baa waayo waxbarashadu waa qaali salaada tukan kari maysid haddii aanad aqoon lahayn cibaadaysan kari maysid wax soconaya ma jiraan iskuulkani waa hoggaankii iskuullada ku yaalla gobolka haddii ilaahay idmo waxaynu ku soo kordhinaynaa waxbarashada wax la yidhaahdo guubaabin abaabul baynu samaynaynaa waxaa la ogaaday gabiley waxay noqotay magaalooyinka ugu horreeya ardayda iskuullada la keeno 170% carruurta joogta iskuulladay ku jiraan iskuulkani waa iskuulkii waxayaan Sheekh Maxamed Warsame waa iskuulka ugu faaca weyn gobolka Gabiley waa aabihii baan oran karnaa dugsiyada Gabiley balyeynaya ardaydaasi maanta la siinayso jaayisadaha ee guuleystay dhammaantii waxaan rajaynayaa insha Allah inaad noqotaan madaxda baritooda naga dambeeya ee degmadan iyo qarankaba hogaamin doona insha Allah gabagabadii waxaa jaayisada la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaanaadka iyadoo maamulka dugsigana uu si gaar ah ugu dhiirigeliyay isla markaasina uu faray inay halkaa ka sii wadaan dadaalkii ay sameeyeen muddadaasi من قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا